ayaan dhaxay waxa soo baxda faruuryaha la duranaya ma arki jirtay iyo sanka iyo waxba la duraya marka dad faruuriyihii ay darbiye la ekaadeen aan aragnay oo maaragtay inta ka war dooneen hawshaas tala ku dhacday qof hadduu jabo ee la kabee bere lagu xiro haddii dadku isjabiyaan ay ayaguna bere ku xirtaan ka war waa arrin yaab marka gabagu marka halkaas ka yimid marka afku siligleyd kulanti waxaan wanaagsan idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka Fiyaada iyo Fagaaraha oo mar kale martin ugu yahay Abwaan Shariif Maxamed Geedi sida aad la socoteen oo horay halkan aad uga daawateenba waxaa jiray waraysi hore oo abwaanka aan la yeelanay kaasi oo qaybo badan ka koobnaa kanina wuxuu noqon doonaa qaybtii labaad ee waraysiga abwaan soo dhawow mar kale waa kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga inaad nasiiso waliba aan duleedka magaalada Dhuusamareeb aan kaaga qaadayno ee waraysigan sharaf ayay noo tahay soo dhawow waa dhawahay أنت فتاح آدم وهالسنتاي runtii aniga barnaamijyada aad bulshada ka qabatana aadan uga helaa oo barnaamijyo muugtahay bixinaya wacyiga bulshada bixinaya oo bulshada wax u gala wana loo baahan yahay barnaamijyadaas oo kale in bulshada dadkii markaas wax ku soo kordhinay in laga qabto way abwaan waxay noo joogtay inaan ka hadli doono mansal la yiraahdo aad tirisay afku saligle oo aad kaga hadlaysay dabcan sidaad hore noogu sheegtana ka hadlaysaa dhalinyarada afka xirata oo siliga ku xirata ama ilkaha waxyaabaha biraha ay ku xirtaan siliga qolada afka ku xirata ay wuxuu ku jeedaan hadaa tiraahdo barnaamij ku jeeda ma dad badan oo waxa jira aan ka maarmin inay qof ilkihiidu qalloocdeen oo kale qof isku qurxinay waxa jira qof daruur ay u tahay af xirashadan horta waxay ka timid qof daruuri ay ku tahay inuu afka xirto oo afkiisa iyo sawirkiisa oo aad u qofka markii ilkii ka kala qalloocdaan ama maaragtay ilkihii ay adigu arrin daruuri ay ku timid arrinkan horta dadka loo baahan yahay inay ilkaha xirtaan waa hawl caafimaad weey waa cilmiga caafimaadka ay qayb ka tahay marka dhalinyaradii waxay ka dhigataa marka xarago qof hadduu jabo ee la kabee bere lagu xiro haddii dadku isjabiyaan ay ayaguna bere ku xirtaan ka war waa arrin yaab leh cilmigan bere xirashadu wuxuu ka yimid markeedii hore wuxuu ka yimid qof afku ka burburay ama inta adigu shil galay wax ku dhaceen ama afkiisi si uu jajabay yaa barnaamijkan bere xirashadu uu ka yimid waana cilmi dhakhtar weey marka dhalinyaradii waxay ka dhigteen marka xarago dhalinyaradii xaraga waxaad arkaysaa ninaad aqoon jirteen haddana aadan aqoonayn gabaraad is arki jirteen haddana aad is arki karin ilkaha ma ogtahay dabeeciga waxa uga wanaagsan ma jiraan qofka waxa dabeeciga wax ka fiican ma jiraan qofkii muuqaalkii dhamaa oo ku ogeed muuqaal ka duwan oo la soo baxaya marka waxaan aad uga xumahay dadku inay waxyaabo oo maaragtay ka yimid markeedii hore qof dhaawacmay inay xaraga ka dhigtaan waaya marka barnaamijku sidaas uu ila leexday waaya dhalinyaro badan oo isqurxin daraadeed u sameysay halka kuwa kalena ku dayasho hadda Soomaalidu waxa jira moogtahay waxbay arkayaan ayaan dhaxay waxa soo baxda faruuryaha la duranaya ma arki jirtay iyo sanka iyo waxba la duraya marka dad faruuriyihii ay darbiye la ekaadeen aan aragnay oo maaragtay inta ka war dooneen hawshaas tala ku dhacday marka barnaamijkan dadku hadda ka hor yaa waxa la daldalanay la yiraahdo Saddam Hussein Allah u naxariisto ninkii Ciraaq hogaamin jiray maalin iiday maalintii la daldalay marka daldalaadii dad isku fiiriya maageen ugu yaraan 11 qof aa dhimatay sida xogta lagu hayo oo maageen isku fiirsay bal ninkaas sidii isku tijaabiyay ayagu markaas inay dhintaan ugu matalagelay waxay maageen bal horta ninkii bal xanuunka uu dareemay haafkiis isgay marka waa ku tageen dad badan marka dhintay inta baroweey maageen daldalaadii marka waxyaabaha qatarka ah wanaagsaneen oo hawsha caafimaadka u baahan in maaragtay la baroweey dhaqan fiican ma dhalinyaradana waa uga digeen marka gabagu marka halkaas ka yimid marka afku siligleyd gabagan wuxuu yimid sideeda waxaan arkay aroosyada magaalada ka dhac horta aroosyadu la xiriira aroosyada ninba gaba soo aroosaya gabadhii meel hotel ah la geenayaa waa maaragtay maryo waxa loo gelinayaa qafiifa gabadhii waa la qaawanaya runtii waxyaabaha cajiibka maalin dhexdaas waxaan fiirsanayay gabar la aroosay
meeshaas hadda halkan ay ku ag tahay maradeedu ay ku ag tahay dahab iyo waxbaa laga lulay maradiina intay ku ag tahay waa labisan tahay oo waa asturanta mana astur maalihii asturka loogu talagalay dhanba waa ka maqan yahay madaxii waa bannaan yahay naasihii waa bannaan yihiin garbihii waa bannaan yihiin gabadha labaceedii jirkeedii oo dhan waa bannaan yahay waxaan iri marka su'aalaan is weydiiyey marka ninkaanu gabadha ma wuxuu ugu talagala dadka inuu ka iibiyo ma iibsanayaa ninkaanu gabadha muxuu u soo bandhigayaa haa haddana inta ku dhagaa la isku dhuqdhuqayaa bulshada horteedii dee hawshii gaarka ahayd waxaa jira hawl layidhaha hawshii gaarka ahayd hawl gaara wey mug marka gabadhii inta la qaawiyo bulshada horteedii iyadoo qaawan la soo istaago la dhuqdhuqo waxba ma aha aniga waa dhaqan nagu soo kordhay weeyo aan wanaagsanayn marka waxay ka soo maaxatay marka barnaamijkaas dhaqankii wuxuu yiri marka afku silig leh ooryaha qaldamay dhaqanka aafoobay waa inan aroos loo wado oon asturanaynin ummadoo arkaysa uu shumiyo oona qaawi ummadoo arkaysa uu shumiyo oona qaawi ma dadku ka iibaa maxaa loo asturi waayo ma dadku ka iibaa maxaa loo asturi waayo ma dadku ka iibaa maxaa loo asturi waayo reerkana ibliis baa galo wax u iftiimaayo uqubaday galeen baa markaa kala eryoonaysa Facebook ma yaabteen dabad alalkoodii maxaa ku dhacay dadkii noocaas u aroosay ma la tix raacay horta maxaa ku dhacay soo ma aadan arag heblaaya la aroosaya gabar baa xagga dhaacda hebla caaw la aroosay hotel hebel intaasoo qarashaa ku baxay intaasoo wafuuda baa ka soo qayb gashay dabadeedna bilka bacdi gabadhiyo Facebook joogta oo dhahaysa kaasoo ahaayo xaguula aayo dhag buu go'naayo jiifka kuma wanaagsanayno xaggaasoo ka halaysna gabadhiyo soo dhahaysa mark social media indhaha waa saartan u malayn waa la arkaysaa haddana waxaad arkaysaa wiilkii u soo jawaabaya haddana dhalinyaradii awalba waxaas ka shaqayn jiray haddana ku darsanaysa loo kala hilinaya labadii markaasaa social media isqabsanaya ma markii hore loo guursaday arooska in caan waxa jira wax la yiraahdo caannimo horta caankan xagee ka yimi waxaan rabaa aniga inaan caan noqdo caanku muxuu ka yimi caanka laba asbaabood lagu noqdaa mid saddexaad ma jiro qofku inuu arrin xun caan ku noqdo oo arrin qatar ah oo bulshadu la yaabto leeyahay war muxuu ahaa ninka waxa sameeyay la yiraahdo caan waa ku noqdaa arrin wanaagsan oo dee bulshadu ay ku faraxdo u begto taariikh saxan ah waad aragtay nimanka halgamayaasha dadkii waxa la yiraahdaa ninkii calanka soo hooyay ninkii waaga cadawga jabshay ninkii maaragtay de arrin wanaagsan ninkii horseeday oo saameyn weyn leh horseeda caan u noqdaa qofku laba asbaabood marka caan lagu noqdo marka dhalinyarada ma kala xulanayaan marka asbaab fiican inay caan ku noqdaan ma raadinayaan haddana wixii social media fiirsanaya dhalinyarada u bateen haddana dhalinyaradii waxa laga yaabaa marka qofkii uu dhalinyaradii ay istiraahdo wax fiican caan ku noqo inay islee ila waxa daawanaya waa dadkii ayaguna la mid ka ahaa moogta u badan meeshii boqolkiiba 100 uu ka rabay boqolkiiba 20 markii la fiirsamo boqolkiiba 30 wuxuu isleeyahay bal horta si saameyn la tag waxay tagta marka in la isqaawiyo in aroosidii loo aroosaba caan in laga helo waxay tagtay in lagu caan raadiyo odageygii wax ma gelino sariirta waxyaabahaas oo dhamaan laga dhaxlay marka Facebook ma yaabteen dabad alaladkeedii arooskii waxaas ku dhacay way awan markii dib loo eego arrimaha socda hadda oo social media tusaale ahaan ka socda adinka abwaaniintii aad ka mid tihiin waxa la dhigi karaa markii horay sidii abwaaniintu ay uga hadli jireen arrimahaas oo kale oo ay uga qayb qaadan jireen baraarujinta hadda waxaad moodaa in gabaabus uu ku yimid oo arrintaas meesha ay ka baxday dhinaca culimada waxaad moodaa iyaga laftirkooda inay daalay marka arrimahaas maxaa u sababa is dhigi kartaa niyo arrimahaas horta waxa u sababa arrinku horta waa ka bedelan yahay arrimihii jiri horta Facebook aaladan la yiraahdo aalad wanaagsan weey hadda oo ma ahan casri wanaagsan weey si fiicanna bulshada wax badan uga bedeshay laakiin waxa loo adeegsanayaa waxa awal yaraa jirtay moogta adinka hadda wariyaashana maarta qofku markuu waraysi bixinayo ama qofka inuu waraysi bixiyo qof waraysi laga qaadaa wax badan ay qaadan jirtay in TV ama idaacad la xiriira ma lama heli karin hadda wiil qof kastaaba waxay tagtay meel waxba iska soo duubaysaa marka
dadkii marka in lagu baraarujiyo inay social media sida wanaagsan uga faa'iideystaan oo sida xun aysan uga faa'iideysan intaas horta waa muhiim cid kastoo wax ka qaban kartana waan farayaa inay baraarujiyaan day culimada tahay day abwaaneynta tahay gabaabsiga yimid oo dhanka culimada iyo dhanka abwaaneynta labadaba mid aan ku hormaro dhanka abwaaneynta haddaan ku hormaro dee abwaaneyntii hore oo dhaqan yaqaanka ahay oo maaragtay waaba yar yihiin wax yara ka noolba dee dhalinyaro kala kacday oo caan raadis ah hees nin hore leeyahay inta la soo qaatay caan lagu noqday mid kale nin leeyahay la keenay caan lagu noqday waxaasaa batay waxaan ka raali gelinayaa hadalkayga dad badan oo fanaaneenaha ay fiirsanayo laga yaabaa inay daawdaan waxaan ka raali gelinayaa fanaaniinta saxda ah fanaanku inuu inta hees xifdiyo abwaan hees u duubo amaba fanaaneen waxaa jirta ayagu alifta qaadana heesa waxaan marka intaas ugu laabanaya dee hal abuurkii aan ka mid ahay marka bahdaydii fanku inay dhibsadaan inaan xoogaa meel ka taabtoon dadkii isku duubaan diidaya waxaa jira marka dad kale waxay leeyihiin caan ku noqday waa bililaqaystayaal